لننطلق إلى العلا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من ضمن intaan ku dhex jirnay safarkeena Cambodia waxaan isku daynay inaan soo boqono tuulada mid ka mid ah taasoo 2 saac loo soconay. waa qari aad ugu yiri muslimiinta. intaan ku dhex jiray waxaa ii muuqda waji aad u farax badan, muuqaal fiican leh, cafis fiican. waan salaamay. salaantii ayuu naga qaaday. waxaan weydiiyey magaciisa. wuxuu yiri Khalid. magac fiican waaye. cumrigiisaan weydiiyey. marka waxaa la ii sheegay cumrigiisu inuu yahay 74. maasha allah maasha allah. mushkiladu waxay tahay keligiisu ayuu nool yahay, ehelkiisu ka fog yahay, qof daryeelaya ma laha. wuu shaqeeyaa xoogaa wax yar oo alwaaxyadu qoraa. dadkana dhammaan way jecel yihiin farxadiisa iyo damaashaadkiisa. wallaahi qof kastoo tagay qalbigiisa u soo jeedinaya. ninkan nin fiican wanaagsan waa qalbi furan. markastana wuu ku soo dhaweynayaa. ayagana saas u daryeelaan. qofka u booqdo oo tago waxyaalo cajiib badana dhacday. ninkan wuxuu dhacday in maalin ay qabteen ay dareemeen inuu dhintay, la dhaqay, qabriga loo diyaariyey. markii janaaso lagu tukaday kadib ayuu dhaqaaqay oo nafti ku soo laabatay. qisada noo sheekay waa kana. kadib wuu soo kacay markii asagoo karfatii lagu xiraya. aad buu u jecel, dadkana way jecel yihiin. sidaas daraaddeed mushkiladu waxay tahay meesha uu ku jiro xitaa meel insaan uu ku noolaan kara ma aha. xitaa iska daa bahalada qaarkood, xitaa xayawaan kuma noolaan kara meeshaas. waxaad u jeedaa tuulooyinka qaabaadka dhan inuu asaga uu liito guriga. wuxuu dareemayaa xishood in loo dhiso xitaa ma ogolo. waxaan doonayaa suuli. meeshan waxba kuma yaan, halkaasaan u aadaa. hadda waxaan jeclaan lahaa inay dhiso musqul. runtii dhab ahaantii ilaahay sharfee. ninkan waxaan isku daynaa inaan dhisno guri qurux badan, laakiin awoodda aan wadana ayar. waxaan isku daynay inaan ka shaqaysiino dadka jecel inay kaalmeeyaan, inay hawshan la dhisaan, awoodda ay geliyaan maalmaha ay fursadda ay leeyihiin. isagana sidoo kale tashjiicaas ayuu ka qayb qaatay, dhiirigelintaas. marka waxay dhahaan carabta intaa qofka sii lahayd lacag, bal ku maamuus inuu shaqaysto oo camal uu sameeyo. abu khaalid wuxuu la kooga soo ceelid kale dadka inay jecel yihiin. يوجد شيء بسيط يوفر له البناء بدلا من استئجار عمال يبنون بيته فتكون تكلفة عالية عليه. بدلا من ذلك يأتي أهل القرية الذين dadkii deegaanka way imaanayaan siday dhismihii kala qayb galaan jacayl ay u qabaan darteed. dhismaha waana inta badan wuxuu ka kooban yahay qajaf iyo alwaaxyo. dadkii ahlu qarya ayaa hawsha galay, garab istaag. Khaalidna si degan oo qurux badan ayuu kormeerayaa isagoo farxad muujinaya. runtii geesku kala qayb qaadanaya xitaa dhismihii qaybihii la qaadi lahaa, dhagaxyadii, alwaaxyadii. aad buu u muraaqabeynaya Khaalid. runtii ahaantii nimanka kuma fiican dhismaha, maxaa yeelay xubbiga u Khaalid ay shaqadaas u qabteen. haddana waxaa dhacaysa mar qaarkood inay shaqada qabtaan ee fashilmato, in kolba dhinac loo jijiido, mar ay fashilmayaan marna u tooseyso. runtii arrintaas waxay ahayd arrin ay ku cusubta deegaanka. marka dambe ugu dambeyn waa ay ku guuleysteen inay toosiyaan dhismihii. quruxda waxay taataal ma dareemayaan. qof kasta farxad ayuu dareemayaa, culays ma dareemayaan in saaxiibkood Khaalid guri loo dhiso. dhab ahaantii
haddaa heshay saaxiib fiican oo wanaagsan ku garab istaago mar kasta farxad iyo dhalo cadeen ayaad ku jiraysaa. khaalid farxadda darteed guriga ayuu sii fariistay inta howshiis dhammaan. wuxuu bilaabay inuu ka soo guuro gurigii qashinka ahaa una guuro guriga fiicnaa. dharkiisa fudud ayuu soo qaatay, waana qayb ka mida maro yar iyo dirin yar, dhar yar. markan waxaa la kulanay khaalid oo guriga dhisay. alxamdulilah howsha waa dhammaatay. xoogaa roob yar laga yaaba in xoogaa geesaa ka soo gali karo. insha allah beri howsha gabagaba ayay noqon doontaa. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guul siiyo. hase ahaatee gurigiisa kuwa hore uu ka soo tagay muusan dayacin, bal wuxuu ka dhigday meel cuntada ku karsado ku jibisto. intaan la bixin ka hor wuxuu ugu sagootiyey dhoola caddeyn qurux badan. jazaaka allahu khayr. walaalkay muslimka walaashii muslimadda ahayn, dadka hadday dareemaan dhismaha ay u dhiseen, kaalmeynta darisnimada iyo walaaltinimada ayay ku dhisan tahay. qalbiga oo soo jilca maaha maal badan la bixiya, laakiin ilaahay xagga alla ay ka imaanaysaa. ilaahay wuxuu leeyahay qulubtooda ayuu isku soo dumayaa. haddaa maal ka soo bixiso qalbigooda iskuma soo dumin, ilaahay baa qalbigooda isku soo dumo. ilaahayu quluubteena isku soo dumo, nagu kulmi ilaahayu carshigaaga hoostiisa maalinta aysan واشتهروا بين الملا. لا تكسلوا فكل من سار بجد